shantaydii su-aalood oo marka shanta fare waxaan sameynaa waxaan ka koobi gareeyey David Letterman ninkii David Letterman late showga samayn jiray New York asxaabtii dhan waa su-aalaha ku soo xidho wana quick xaggaa ku dhalatay Boorama xaggaa maanta ku sugan tahay oo aad joogtaa degan tahay Hargeysa Cadday favorite country or speech ama motivational speech ka qabatay Rwanda, Africa, heart of Africa. Rwanda ya Kigali. Yeah, man, that was 10,000 people, bro. Oh, that's beautiful. Wow. From all over Africa. Come on, oh my man. God, 10,000 in Kigali, Rwanda. Wallahi, I wish you had 10,000 on stage. I'm so happy. Next time you have to come. Subair, why not, Mada? Next time. Next time you have to come to it. Diyar, صح. Diyar. بندوقي بها أنا فايرس بندوقي دي بقى قاعد كدعي واي waxa la yiri qofkii la arka 6 saac wixii ka dambeeyay hal toogto واي haye 5 saac iyo barba mid la qab واي sawaa la toogto واي meeqa ka dhiman 5 saac iyo bar 6 saac xilligii la hal toogto 30 daqiiqo waxa la yiri maxaa u toogatay baa la yiri ninka 30 daqiiqo ka dhiman xilligii واي wuxuu yiri xaafadiisaan garanaya aad bay u fogtahay kama gaaro bow xaafadiisaan garanaya wallahi kama gaaro xabad buu 30 daqiiqo grafka xasano Nairobi Kenya naga dabagay horta in Europe background ka how Nairobi hadda lockdown ki sidee buu dadku u afkireeyay صاحب نيروبي هرتا aad wanaagsan tahay lockdown kuna waxa weeyaan ogaaladii waa yareeyay wasaxyaal ku saabsan ogaalidii ogaaladii waa yareeyay socodkii waa yareeyay waxaan ku adeegyo badan way adkaadeen si lagu helo marka waa la kulli laakiin waa la tacaalaya waxaan malaynayaa xaaladda guud laakiin nabadgelyo u badan tahay ma sha Allah shantii su'aalood waniga ka qaaday laakiin سؤالنا ku soo xiray hadii farmaajo iyo khayre hadii labadu ninba isu soo sharaxaan madaxweynaha iyo ra'iisul wasaaraha Soomaaliya maanta yaa taageeraysa labadooda hadii soo sharaxaan waxaan taageeraya marka ka dhax arko siyaasadda qofkii Somaliland gobolada aan ka soo jeedo qadiyadooda aan u fadhiyo kursiga oo aan matalayo oo aan hay hormuudka in la walaaloobo aan ka dhax arko qadiyada Somaliland gacanta ku haya مكو قنعنيتها كما إنه قنعين ها سياسة إلا مروة صحوفي صحافة ما سياسة وادن سياسة وادن ها أنا كرسي بنفرديها وحن مثلا سوماليلاند واي هدي أو سوماليلاند أنا إسلا هذا فرماتش سوماليلاند وما فيعنا خيرها وفيعن خيرها راعي دينا خيرها سوماليلاند وما فيعنا وإنا قبل لذا أن متنسن أنا ما أنت وحكست عن مالكست عن جارو ولكن حمانتيس إما تعفيسو أنت بعتكست عن لا يهي ولكن شرفتيسا عن سنكرا ها so markii aan wadankeena ka fikireyno markii aan ka fikireyno dadkeena diasporada ku nool markii aan ka fikireyno walaalaheena nasiibka leh oo anigoo kaleete meel fog gaaray ama wax noqday markii aan ka fikireyno dadkeena dhibaataysan oo ama xabsi ku jiro ama daroogo iyo addiction la struggle gareynayo in aan xasuusnaano qof Soomaali xumaantiisa markii aan sheegno in kulligeen xumaanteena aan sheegno Soomaali wanaagiisa markaan sheegno kulligeen wanaageena inaan sheegino aan uga fikirno truly because any family weyn aan ka imaaday and like family is complicated but ultimately we're family so maaha like family is very complicated and some noise for us filter banaadsanaya isig إن شاء الله بل سوق فلتر كان واخلدني هاي والله she's the best
Nasteex number 1 kana landera haye idhageys waa markii kuugu horeysay Instagram live noloshayda ma kara magaciisa Instagram waxaa la yiraahdaa ilaahay baa og kolba hadda igu horeysa bahalkan oo waxaan ka ahay xalay dhalay sharaf bay tahay wallahi billahi sharaf bay tahay inaad iga aqbashid adiga iyo dhammaan asxaabtooda dad badan baa first time ever that's beautiful filterkan ma ka heshay hadda ma sii wadanaa waxa bamraysa garowe lagu sabeeyay ilaahay ku dhaartay laandero reer garowe stand up waxaan kula talin lahaa horta waxa walaal lagu yahay in maaragtay horta la is caawiyo la is garab galo hal mid baan rabaa caawo inaan anigu maaragtay wacyi gelin ka dhigo oo aan ku daro diyaar maalintii waxaan daawanayay inaan YouTuber markaas waxay soo dhigtay inaan laba gabdhood oo friends ahaan jiray xoogaa jealousy dumarka wad iska garan kartaa problem waa ka qabnaa dhankaas marka waxaan ku wacyi gelin lahaa dhamaantiin Soomaalida qof kasta qofku ka sareeyo role model ha u noqdo ha ku daysado sida maartay ajnabiga oo ay sameeyaan Soomaalida badanaa waxay sameeyaan qofka markuu heer gaaro Soomaalidu waxay jecel yihiin inay lugaha jibiyaan صح والله marka role model qofka ha ku noqdo ku dabaydayso qofka jeceshay wuxuu jecel yahay samee heer gaar aduguba iskarab qabta kuwa de maartay heerka gaarina waxa leeyahay qof kasta oo maartay ka hooseeyo hoos fiiri caawi